عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamij cusub oo taxana oo la magac baxay barashada cashuuraha waxaana soo diyaarisay waaxda xiriirka dadweynaha iyo xogta ee wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaana loogu talagalay in dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu baro noocyada kala duwan ee cashuuraha waa barnaamijkii koowaad ugu horeysa waa maxay cashuurtu cashuurtu waa qaaraan khasaba oo ay dawladdu ka qaado cid kastoo ay ku waajibtay qof shakhsiya shirkad iyo cid kastoo wax isdhaafsanaysa si ay ugu fuliso waajibaadka ay u qabanayso shacabkeeda oo ay ka mid yihiin nabadgelyada iyo cadaaladda iyo caafimaadka iyo waxbarashadii wixii la mid ah qaaraankaas la yiraahdaa qaybaha cashuurtu waxay yihiin qaybaha cashuurtu waxa weeye wax loo qaybiyo cashuuraha marka la kala saarayo laba qaybood oo waaweyn cashuurta toosan iyo cashuurta dadban waxa labada cashuurood marka si guud galo cashuurta toosan oo kale waa cashuurta mushaharka shaqaalaha cashuurta income taxka ee la yiraahdo in taqaanaha kirada daaraha iyo tan kale income faa'iidada macaashka faa'iidada tan kale ee dadban waa cashuurta customka waana waxa looga jeedaa dadban loo yiri waxa weeye qofkiiba la sii saaraya macmiilkiiba uu soo ceshanaya ninkiisii bixiyay maxay yihiin xeerarka cashuuruhu xeerarka cashuuruhu sida guud waa laba qaybood oo waaweyn xeerka dakhliga cashuuraha bariga xeer lambar 72/2016 iyo kaasoo u qaybsamaya cutubyo dhowra cutubka qodobada guud iyo cashuurta dakhliga badeecada iyo adeega cashuurta xakamaynta hay'adaha dakhliga cutubadaas waxay hoos tagayaan xeerka dakhliga cashuuraha bariga iyo qaybta labaad oo lifaaqa toddobaad ee xeerka dakhligu waxa kale uu sheegayaa xeerarka lagu maamulayo cashuuraha waana xeerka kastamada cashuuraha moorka wadamarista diiwaangelinta xeerarku si guud inahaasay noqonayaan tan inta aynu isugu imanayna daawadayaal barnaamijkan ka xiga waxaan idinkaga tagaynaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh